cashirkan waxaan ku baranaynaa sida loo helo greatest common factor ama asagoo la soo gaabiyay GCF. waa maxay greatest common factor? greatest common factor waxaa la yiraahdaa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo lambaro. tusaale ahaan, waa maxay lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 30 iyo 40? marka waxaa laga doonayaa inaad soo heshid lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo lambarada lagu siiyo. sida hadda tusaalahan oo kale wuxuu ku yiri find the GCF of 30 and 40. soo hel lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 30 iyo 40. marka waxaad subinaysaa, marka ugu horeysa waxaad dhiganaysaa 30 baad dhiganaysaa iyo 40. wuxuu kugu yiri waxaad soo heshaa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 30 iyo 40. marka waxaa la subiyaa, markaa saas u dhigatid 30 iyo 40 waxaa la subiyaa prime factorization ayaa la subiyaa. haddii aadan aqoonin prime factorization waxaad taawataa videoga kale ku saabsan. marka waxaan subinaynaa prime factorization ayaan subinaynaa. 30 u qayb 2 waa 15. 15 u qayb 2 uma qaybsanto. 15 u qayb 3 waa 5. marka waxaan calaamadsanaynaa lambarada prime-ka ah. lambar 3 waa prime number, waa calaamadsanaynaa. lambar 3 waa prime number, waa calaamadsanaynaa. lambar 5 baan ka wadaa. lambar 2 waa prime number, waa calaamadsanaynaa. lambar 15 ma prime number, marka ma calaamadsanayno. haddana 40 baan soo helaynaa. prime factorization of 40 baan soo helaynaa. 40 u qayb 2 way u qaybsantaa. 40 2 loo qaybiyay waa 20. 20 u qayb 2 20 2 loo qaybiyay waa 10. 10 u qayb 2 10 u qayb 2 10 2 loo qaybiyay waa 5. markaas u qoratid waxaad calaamadsanaysaa lambarada prime-ka ah. lambar 2 waa prime number, lambar 5 waa prime number, waa calaamadsanaysaa. lambar 2 waa prime number, lambar 2 waa prime number. lambar 20 ma prime number, lambar 10 ma prime number, marka ma calaamadsanaysid. markaas oo calaamadsayd baa halkaas ku qoranaysaa prime factorization kiisa. 2 muxuu ahaa 30 2 lagu dhuftay calaamada dhexda ugu jirto oo dhibicda weyn ah waa ku dhufasho lagu sii dhuftay 5. hadda 2 ku dhufo 3 ku sii dhufo 5 waa 30. marka waxaan subinay prime factorization. haddii aadan aqoon videoga kala daawo. okay, kan wuxuu ahaa 40 wuxuu ahaa 2 lagu dhuftay wuxuu ahaa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay 5. saas ayuu ahaa. halkaas ay nagu calaamadsan yahay. marka saas u qoratid baad waxaad subinaysaa waxaad fiirinaysaa lambarada ay iska midka ka yihiin. 40 prime factorization kooda lambarada ay isku midka ka yihiin. lambar 2 isku mid bay ka yihiin. marka saas baad xariiqin ugu dhiganaysaa. 2 isku mid bay ka yihiin. 5 iyo 5 isku mid bay ka yihiin. 5 iyo 5 marka labada lambar ay isku mid ka yihiin waa 2 iyo 5 bay iska mid ka yihiin. marka waxaad qoranaysaa GCF-ka wuxuu la mid yahay greatest common factor-ka wuxuu la mid yahay GCF-ka wuxuu la mid yahay 2 lagu dhuftay 5 waa 2 ku dhuftay 5 waa 10. marka sababta 2 lagu dhuftay 5 u qoranay waxa weeye prime factorization kooda lambaradan 30 iyo 40 prime factorization kooda waxay isku mid ka yihiin. 2 ayay isku mid ka yihiin. mid walba wuxuu leeyahay lambar 2, mid walbana wuxuu leeyahay lambar 5. marka lambarada isku mid ka yihiin baa la soo qaataa, waa la isku dhuftaa. marka 2 baan soo qaadanay, haddana 5 baan soo qaadanay, waan isku dhufanay, 10 buu noqday. marka lambar 10 waa greatest common factor-ka. lambar 10 waa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 30 oona loo qaybin karo 40. lambarka ugu weyn weeye oo labadoodaba qaybiya. lambar 10 waa lambarka ugu weyn oo qaybiya lambar 30 iyo lambar 40. marka greatest common factor-ka waan soo helnay waana lambar 10.
tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan wuxuu leeyahay find the GCF of 180 and 120 soo hel lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 180 iyo 120 waxaan halka doonayaa inaan soo helno GCF-ka ama lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 180 iyo 120 ba marka waxaan subinaynaa marka ugu horeysa waxaan dhiganaynaa 180 haddana waxaan dhiganaynaa 120 marka saas baad u qoranaysaa marka waxaad subinaysaa prime factorization kooda ayaad hortooda ku qoraysaa oo markii la isku dhufto noqda kuwan marka prime factorization ka lambar 180 waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 3 lagu sii dhuftay 3 lagu dhuftay 5 120 prime factorization kiisa waxa weeye waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2 lagu sii dhuftay 3 lagu sii dhuftay 5 iyo 5 waa inta haddii aadan aqoonin prime factorization ka waxaad daawataa videoga kale oo la yiraahdo prime factorization waxaad ku baranaysaa videogaas sida loo soo helo lambarada prime ka ah oo markii la isku dhufto noqda lambar marka hada lambaradan waa lambarada prime ka ah markii la isku dhufto waxay noqdaan 120 lambaradan kalena waa lambarada prime ka markii la isku dhufto waxay noqdaan 180 haddii aadan aqoon sida loo subiyo waxaad daawataa videogan la yiraahdo prime factorization marka hada prime factorization ka waan soo helnay lambaradan marka waxaa la subiyaa waxaa la calaamadsadaa lambarada isku midka ka yihiin marka 180 lambaradooda prime factorization kooda isku mid ka yihiin lambar 2 isku mid ayay ka yihiin xariiqin baa lagu substaa lambar 2 haddana isku mid bay ka yihiin xariiqin baa lagu substaa lambar 3 haddana isku mid bay ka yihiin xariiqin baa lagu substaa lambar 5 haddana isku mid bay ka yihiin xariiqin baa lagu substaa marka hadda waxaa la subiyaa GCF-ka wuxuu noqonayaa GCF-ka ama greatest common factor-ka wuxuu noqonayaa lambarada isku midka ka yihiin ayaa la isku dhuftaa hadda lambar 2 isku mid bay ka yihiin waan qoranaynaa waxaan ku dhufanaynaa lambar 2han kalena isku mid bay ka yihiin waan qoranaynaa lambar 3na isku mid bay ka yihiin waan qoranaynaa lambar 3na haddana lambar 5na isku mid bay ka yihiin waan qoranaynaa isagana markaasaas u qoratid intaas oo lambar ay isku midka ka yihiin way GCF-kaaga ama greatest common factor-ka marka waad isku dhufanaysaa lambaradan 2 ku dhufo 2 ku sii dhufo 3 ku sii dhufo 5 waa meeqo waa 60 calculator waa inaad isticmaashid calculator marka hadda wuxuu noqday greatest common factor-ka wuxuu noqday 60 ayuu noqday lambar 60 waa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 180 oona loo qaybin karo 120 marka greatest common factor-ka wuxuu noqday lambar 60 ayuu noqday lambar 60 waa lambarka ugu weyn oo labadoodaba qaybiya lambar 60 wuxuu qaybin karaa oo waa lambarka ugu weyn oo qaybin kara 180 waana lambarka ugu weyn oo qaybin kara 120 marka greatest common factor-ka waa lambar 60 oo lambaradan labadan lambar greatest common factor-kooda waa lambar 60 tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale tusaalahan wuxuu ku leeyahay find the GCF of 15 and 14
soo hel lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 15 iyo 14 marka waxaad dhiganaysaa 15 haddana waxaad dhiganaysaa 14 marka waxaad soo helaysaa prime factorization kooda waa maxay lambarada prime-ka marka la isku dhufto noqda 15 waa 3 iyo 5 weeye 3 ku dhuf 5 waa 15 waa maxay lambarada prime-ka marka la isku dhufto noqda 14 waa 2 lagu dhuftay 7 marka hadda si aan u soo helno GCF-ka waxaan fiirinaynaa lambarada ee isku midka ka yihiin prime factorization kooda isku midka ka yihiin marka hadda waxaan u jeednaa in aysan jirin lambaro ee isku mid ka yihiin kan wuxuu leeyahay 3 iyo 5 kan wuxuu leeyahay 2 iyo 7 ayuu leeyahay marka labadan 15 iyo 14 ma haystaan ama ma laho GCF ma lahan marka waxaad ku jawaabaysaa there is no GCF of 15 and 14 ma jiro lambar ugu weyn oo loo qaybin karo labadoodaba marka labadan ma jiraan tusaalahan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale tusaalahan ayaan subinaynaa tusaalahan wuxuu leeyahay find the GCF of 15 and 9 soo hel lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 15 iyo 9 marka waxaad subinaysaa waxaad dhiganaysaa 15 baad dhiganaysaa haddana waxaad dhiganaysaa lambar 9 marka saas u dhigatid baad waxaad soo helaysaa prime factorization kooda waa maxay prime factorization of 15 prime factorization of 15 waa 3 lagu dhuftay 5 waa maxay prime factorizationka lambar 9 waa 2 waa 3 lagu dhuftay 3 marka saas u qoratid baad waxaad fiirinaysaa hadda lambarada ay isku midka ka yihiin lambarada isku mid ka yihiin waa lambar 3 ay isku mid ka yihiin lambar 3 kaliya ay isku mid yihiin marka GCF-kaada GCF-ka wuxuu yahay lambar 3 weeye waa lambar 3 lambar 3 waa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 15 iyo 9 lambar 3 waa lambarka ugu weyn loo qaybin karo 15 waana lambarka ugu weyn lambar 3 oo loo qaybin karo 9 marka GCF-kaaga ama greatest common factor-ka waa lambar 3 weeye marka cashirkan oo ah qaybtii koowaad oo ku saabsanaa greatest common factor waa qaybtii koowaad meeshaas ay ku dhamaaday marka qaybta labaad daawo